Assalaamu calaykum dhammaan kusoo dhawaada muuqaal cusub. Maanta waxa ayaan ka hadli doonaa shil oo dhacay sanadkii hore isla bishaan July oo shilkaas Soomaaliya dhan aad ayaa looga naxay. Waxa ayaan uga hadli doonaa si faahfaahsan. Waxa ayaan soo gudbin doonaa faahfaahin oo ka hadlayso shilkaas iyo sidoo ku dhacay. Waa pilot shooter oo nii soo gudbinayo baaritaanka diyaaradaha. labadii kun labaatan iyo labada July 18 waxa ayaa ku burburay eelaboorka Muqdisho diyaarad ay leedahay shirkadda Juba Airways. Diyaaraddaas oo nooceedu yahay Fokker 50. Registrationkeedu wuxuu ahay 5 Yankee Juliet Extra November. Diyaaraddaas oo saarnay 36 qof, 3 crew iyo 33 rukaab, 2 duuliyo iyo 1 cabin crew ama flight attendant. Diyaaraddaas waxay ka soo kacday eelaboorka Shaati Gaduud ee Baydhabo waxayna ku soo beegneed Muqdisho Airport, Aadan Cabdulle International Airport. Diyaaraddu waxay ka soo kacday Baydhabo ku dhowaad markay saacadu ahayd 4 saac iyo 55 daqiiqo. Waxayna ku soo dhawaatay eelaboorka Muqdisho markay saacadu ahayd 5 saac iyo 24 daqiiqo. Diyaaraddaas markii ay ku soo xiratay Muqdisho Airport oo loo fasaxay in ay ku soo degato, waxa ayaa loo sheegay in hawada tahay winds calm ama hawada inay degan tahay. Diyaaraddaas anagoo og inay hawada degan tahay, waxa ayay ku soo xiratay ku soo socotay in ay ku degto garoonka Muqdisho oo Aadan Cabdulle International Airport. Diyaaraddaas markay soo degan rabtay, duuliyaha lugta bidixda ayaa jidcadaha banaankiisa ka taabatay, taas oo sababtay in diyaaradda dhinaca bidixda u wareegato oo baalka bidixda dhulka ku dhaco oo diyaaradda futaga doonto. Diyaaraddaas aad ayay u taraaraxday, jidcadaha dhinaciisa bidixda ayay ku taraaraxday. Taraaraxaas ama baalkaas oo dhulka taabtay oo ku xoqmaday wuxuu sababay spark ama inuu dab ka kaco diyaaradda. Laakiin Ilaahay fadligiisa diyaaraddaas waa laga soo gaaray, dabdamis ayaa ka soo gaaray, dabkaasna waa la damiyey. Waxa kaleeto oo joogay agagaarkaas ciidan oo tababar u socday oo Mareykan oo ayakana gurmad bixiyeen. Dhammaan dadkii saarnaayeen diyaaraddaas way badbaadeen, kaliya 16 qof ayaa dhaawac gaaray. Sababta shilkaas keentay waxa ayaa lagu sheegaa in baalka bidixda jabay intay diyaaradda dhulka taabanin ka hor. Taasna sidii muuqaalka nooga muuqato ma aha wax jiro ama wax aan anaka arki karno. Tan labaad waxaa la sheegaa in diyaaraddaas wind shear ku dhacay. Hadda ka hor waxaa ku soo sheegnay wind shear-ka waa sudden change of wind in direction and speed, in hawada si lama filaan isku bedesho xawaaraha ama jihada ay ka socoto, labadooda isbedelaan. Laakiin sida nooga muuqato videoga ama muuqaalka aan ugu jeedno CCTV-ga kaamirada, waxa ayaa noo muuqdo in diyaaraddaas lugteeda bidixda jidcadaha maahane banaankiisa inay ku soo degtay, oona taas sabab u noqotay in diyaaraddaas gadoonto. Wallahu aclam. Hortay karnaa shilkaas ama shilalka noocaas camal horta weli baaritaanka oo diyaaraddaas ku socday ma dhammaanin. Marka aniga sida ayay ila tahay, maadaama oo baaritaankaas weli oo dhammaanin oo socdo, waxa ayay ila tahay in tababarka duuliyaasha lagu kordhiyo jidcadaha ama runway-ga thresholdkiisa inta ka horeyso, ama diyaaradda sida loogu talagalay inay thresholdka taabato, ama hadduu jidkaas dheer yahay
in jidka runwayga si guud loo isticmaalo oo diyaaraddaas si degdeg ah loo dejinin ama si tartan uuna ku jirin. sidaan ognahay waxaad wadid waa rukaab ama ruux bini'aadan ayaa wadaa oo ammaano kuuga ah oo aad u baahan tahay in aad ilaaliso. sidoo kale taqyaaraya waxaa soo gaarnay muuqaalkeena qaybtiisa ugu dambeysay. haddaad ka heshay muuqaalkan ama aad rabto muuqaalo noocan camal ah inaad kusoo kordhido channelkan, waxa ayaad samaysaa kusoo biir channelkan, subscribe saar. Peace out.